beesha caalamka oo wax u yeerin weyday hogaamiyaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi kadib markii uu madaxweyne Biixi bir adag isaga dhigay cadaadiska beesha caalamka iyo dawladda Mareykanka sida la socotaan markii uu bilowday dagaalka aan wali dhammaan ee magaalada Laascaanood waxaa Somaliland la saaray cadaadis caalami ah oo isku mid u saareen dhammaan dawladaha waaweyn ee saameynta ku leh Soomaaliya cadaadiskan oo si gaar ah loo saarayay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa loogu sheegay inuu ciidankiisa kala baxo magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxaana ay dawladda Mareykanku dhowr jeer ku hanjabtay inay adeegsan doonto xayiraad socdaal mid dhaqaale iyo kanaalo kale oo diblomaasiyadeed dhammaan dadka ka faalooda siyaasadda ayaa muujiyay in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi u nuglaan doono cadaadiska beesha caalamka ayagoo aaminsan inaysan Somaliland nuuxsan karin la'aanta beesha caalamka laakiinse madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ah hogaamiye mayal adag ayaa beesha caalamka iyo Mareykanka la wadaagay inaysan ku xadgudbin madaxbannaanida Somaliland isagoo sheegay inay Somaliland xaq u leedahay sida dawladaha kaleba inay difaacdo madaxbannaanideeda sidoo kale Biixi ayaa ka codsaday beesha caalamka inay garab istaagaan ciidanka militariga Somaliland si ay u soo xiraan xuduudaha dhuleed ee Somaliland sidoo kale Somaliland ayaa dawladda Mareykanka hordhigtay cadayn ah inay magaalada Laascaanood ka dagaalamayaan qaar ka mid ah ciidanka danab ee ay dawladda Mareykanku u tababartay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana ay Somaliland u sheegtay Mareykanka inay magaalada Laascaanood ku dileen taliyaha sare ee guutada afraad ee uu Mareykanku tababaray ee ciidanka danab waxaana ay Somaliland Mareykanka weydiisay su'aal ahayd Mareykan danab adiga ma aha miya kadib markii ay Somaliland soo bandhigtay inay ciidanka danab qayb ka yihiin dagaalka magaalada Laascaanood waxaana dawladda Mareykanka u bariyay waa cusub iyadoo intaas wixii ka dambeeyay ka gaabsatay inay ka hadasho dagaalka magaalada Laascaanood laakiinse waxaa la xaqiijiyay inay Mareykanku u wareegeen dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo ka codsatay inay raadiso xalka magaalada Laascaanood sidoo kale halkan ayay ka dhalatay in odayaal dhaqan loo diro magaalada Laascaanood kuwaas oo hadda ku sugan magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland odayaashan ka tagay magaalada Muqdisho ee ku sugan Hargeysa ayaan wali la kulmin madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi waxaana ay Somaliland hoos u dhigtay maqaamka odayaashan kuwaas oo isku arkayay inay wakiil u yihiin Mareykanka iyo beesha caalamka sidoo kale odayaashan ayaa hadda ogaaday awoodooda waxaana ay wali isku dayayaan inay la fariistaan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi walow aan la ogeyn sida ay ku heli doonaan maadaama madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi uusan odayaashan uga jeedin xalka magaalada Laascaanood intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Sool kulanti dambe oo xiiso leh saaxiibayaal